الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي ولا البوئد السلام يا إلهي ربي سبحانه وتعالى ملك استئوا كستان جوجنا الله هنا بركية دجي وناكسن الله هنا دجي وبركيسن. الحمد لله رب العالمين. إلهي بمهد إسكالا إنوس دميي سجالكي أمهات كان أها رضوان الله عليهم أجمعين سيرة دودي. إلهي بانكم مهدينينا إلهينا إنكو أنفعه. وحن ربا هلكن رسولك عليه الصلاة والسلام ملك اليمين قبل باجري ولها النبي عليه الصلاة والسلام وسريوين كيسا وحكمد أها مارية القدبية وأم إبراهيم أهيد عليه السلام إيا الريحانة بنت سيد قبل الهجرين. وحن كعني ميسانينا ماريا كدبنا إن شاء الله وحن كحجي صندوقنا هدي ألا نفنو داعي الريحانة. ماريا وحل ديه جري ماريا بنت شمعون القدبية رير قدبي بأهيد مصريات قدبية دا أي أهيد أم إبراهيم بأهيد نبينا عليه الصلاة والسلام حيود شيء ويلكيسي إبراهيم أها أي ودش النبي عليه الصلاة والسلام. نسيب إيسن هلين إني أيدو قادته مقع أم المؤمنين لكن إلهي النسيب حسي شرف inay maaragtay u noqoto wiilkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam Ibraahim calayhi salaam hooyo iyo inuu nabigu guursado calayhi salaatu wasalaam iyo suxbadii nabiga saxaabadiisii iyo saaxiibtinimadii in Ilaahay uu ku irsaaqay. waxay ku dhalatay Maariya magaalo la yiraahdo Jafna oo magaalo tuulo ah oo dhulka maaragtay Saciid al-Masri dhulka Masar ku taala. hooyadeed waxay ahayd islaan maaragtay nasaara oo kirishtaan ah oo Yurubiyan ah dhashay aabaheedna Masri buu ahaa qidbiyo ahaa. kadib markay soo weynaatay xoogaa ay soo leekaatay soo kortay ayada iyo walaasheed markay xoogaa soo leekaadeen waxa loo wareejiyay reerkooda reer diinta kirishtaanka aad ugu dhagan ay ahaayeen. waxay u wareejiyeen boqorkii wadanka haystay Masar oo magaalada Al-Iskandariya deganaa oo maqawqasul cadiim boqorkaasi ito maqawqasul cadiimka ah oo qidbiga ahaa qasrigiisa ayaa loo wareejiyay iyadii gabar walaasheeda oo Siiriin la yiraahdo. halkaas ay ku soo qaateen dhallinyaranimadoodii ay ku waaweynaadeen. halka iyagoo jooga dad diintoodii kirishtaanka haysta ah gabdha edeb la jecel yahay reerka qidbiyankana qaymo kule ah awalba loo hadiyay kaniisada iyo inay halka joogaan qasriga boqorka ay ku noolaadaan yani dad qaymo la ay qaymo ka jooga ay ahaayeen. ilaahay marka wuxuu qadaray iyagoo noloshooda sidaa tahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu risaalooyinka diraayay ayuu nabigeenu ninka maqawqaska maaragtay boqorkii Masar ah ayuu wuxuu u diray warqad boqoradii warqada u diray ayuu ku jiray. waxa warqada loogu sii dhiibay Xaatib ibn Abi Balta'a saxaabiga jaliilka radiyallahu ta'ala anhu arda. asaga ayaa qaaday warqadii nabiga calayhi salaatu wasalaam u sii dhiibay wuxuu u geeyay boqorkii maaragtay ayuu u geeyay. markuu u geeyay warqadii uu arkay uu nabigu u soo qoray calayhi salaatu wasalaam wuu qiimeeyay uu soo dhaweeyay sharaf buu ku qaabilay martidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ninka rasuulka uu soo dirayna wuu soo dhaweeyay. kadibna Xaatib uu la hadlay wuxuu weydiiyay su'aalo ku saabsan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo sifooyinkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam. kadibna laana waxaan ilaa kitaabkooda ku qorayd Injiil iyo Tawraad baa ahlu kitaabka waxa way ku qoraayeen kutubtooda nabiga sifaadkiisa calayhi salaatu wasalaam. markuu sifooyinkii iyo wixii weeraystay uu su'aalihii weydiiyay kadibna meel buu dejiyay. wuxuu yiri markaa maaragtay islaamnimadiisa markaa wuu ogaaday xaqiiqada. marka wuxuu ku yiri Xaatib boqorkii Xaatib Allah ka raali noqdo boqorkii baa wuxuu ku yiri asaga maaragtay waan ogaa inuu soo baxayo waan sugayna inuu rasuul iyo nabi imaan doono laakiin uma maleynaynin inuu dhulka ka soo baxayo ardul Hijaaz inuu xaggan iyo Shaam ka soo baxayaan uma maleynayay. kadibna islaamnimadiisa ma uusan muujisan laana wuxuu u baqay adduunyadiisa iyo boqortooyadiisa ayuu doortay aakhiriya adduunyo ninkaas doortay asagoo xaqiiqadii og iyo islaamka inuu diintii xaq ahayd iyo nabiga Maxamed calayhi salaatu wasalaam uu xaq yahay. kadibna wuxuu sameeyay wuxuu u soo dhiibay Xaatib wuxuu u soo dhiibay laba gabdhood oo jaariyada ah oo waxay yihiin labada gabdhood Maariya iyo walaasheed Siiriin ayuu u soo dhiibay. wuxuu yiri labadan gabdhood waa hadiyad aan u sii dhiibayo rasuulkaasayto maarta labadan gabdhoodna waxaad u sheegtaa inay qaymo ka leeyihiin reerahan qidbiyiinta ah
gabdho sharaf iyo qaymale iyo muunadle inay yihiin asagaana u hadiyeeyey oo aan usii dhiibay ugey. wuxuu kale usoo dhiibay wiil maaragtay adoon ahaa ayuu usoo dhiibay la dhihi jiray maaragtay maabuur la dhihi jiray. maabuur ayaa la dhihi jiray in adeerkoodu ahaa baa la dhahaa, walaalkoodu ahaa baa la dhahaa, nin weyn ah ayuu isagana usoo dhiibay. wuxuu kale usoo dhiibay 100 maaragtay waxaan dhihi lahaa kun culays gaaraya oo dahab ah oo maaragtay ayuu usoo dhiibay. wuxuu kale usoo dhiibay 20 maro. wuxuu kale usoo dhiibay baqladii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cadayd oo shahbaa la dhihi jiray ama duldul. wuxuu kale usoo dhiibay dameer la dhihi jiray cafiir. wuxuu kale usoo hadiyeeyay malab oo saafi ah. wuxuu kale usoo dhiibay cadar cuud ah iyo cadarka miskiga, noocyo kala duwan cadarada ah. kadib xaatib alaabtii amaanadii buu soo qaaday. haddii jidkii bil dhan jid lagu soo jiraayo lasoo soconayo, gabdhihii nolosha kusoo barbaaray iyo qasrigaasayto iyo dadkoodii ehelkoodii laga soo waday meel cusub, wadan cusub, luuqad cusub, howlo cusub ee wajahaya, aad bay maaragtay iyaguna u baqaayeen. xaatib wuxuu guda galay allah ka raalli noqday saxaabiga jaliilka inuu u sheekaynayo gabdhihii uu uga sheekeeyay yiri hawlwalinina, gabar waxaa jidhay meesha la idiin wado waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam, nabigii raxmadda iyo naxariista caalamkan iyo adoomada ilaahay uu soo diray inuu adoonnimada ka saaro, ilaahay cibaadadiisa u bixiyo uu ugu yeero, marka nasiib baa leedihiin ayuu ku yiri. siduu ugu sheekeeyay wuxuu kale uga sheekeeyay haajar calayha salaam iyo jidkii ay martay iyo nabi ibraahim calayhi salaam in loo hibeeyey inay maaragtay ismaaciil u dhashay calayhi salaam, ismaaciil farciisina inuu yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam, maaragtay iyo nabi ibraahim isagoo qof weyna in ilaahay uu kaga irsaaqay ilmaha. wixii oo dhan buu uga sheekeeyay sharafta gabadha ilaahay sharfay iyo qiimihii islaamka ka joogtay, iyo haddana iyadoo maka timi oo halkaa loo soo safriyey oo halkaa farceedii uu yahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. adigu qisadii haajar buu uga dhacay iyo iyadoo rasuul iyo nabiba uu ahaa nabi ibraahim calayhi salaam, rasuul iyo nabina ay dhashay. sidii markuu uga wada sheekeeyey gabdhihii arrintii way taabatay inay jidkii haajar ayaguna maanta hayaan, ilaahayna uu maaragtay deeqdiisu badan tahay, maaragtay cajaa'ibtaasaa lahayd hooyo maariya in ilaahay uu mariyay jidkii haajar ay martay taariikhdii mar labaad isi soo laba celisay. ilaahayna rabbi subxaana watacaala uu bishaaro iyo khayr siin doono, ugu dhammaystiri doono. waxaa la dhahaa oo qoran culimada badana markay ka hadlayaan maariya calayha radiallahu tacaala canha waardaa siiradeeda, intaysanba imaan madiina ayay soo islaamto xaatib gacantiisa islaamnimadii diinta uga sheekay u bandhiga ayay ku islaameen. gabdhihii iyagoo muslimiina ayay madiina yimaadeen baa la dhahaa. waxaa kaloo la dhahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markay u timi kadibna way islaamto waa la dhahaa labadaba, laakiin tan waxaa xoog badan inay markaa iyagoo muslimiina ilaahayba halkaa kusoo islaameen jidka intay soo socdeen. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii loo keenay hadiyadii iyo alaabtii iyo wixii, nabiga waxaa cajab gelisay maariya ayuu doortay nabiga calayhi salaatu wasalaam, laana labada gabdhood isagaa loo soo hadiyey, isagaa iskala, laakiin laba gabdhood oo walaalo ama uusan wada haysan karin. walaasheed wuxuu u hadiyeeyey siriin shaacirkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, xasaan ibnu thaabit ayuu u hadiyeeyey. xasaanna waxay u dhashay wiil bay u dhashay cabdiraxmaan la dhaho markii dambe. saxaabigaas oo xasaan ibnu thaabit oo ansaari ahaa, ilaahay raalliha ka noqda, reer khasraj ahaa. ilaahay rabbi subxaanahu watacaala rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu u qadaray maariya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu doortay, iyada uu maaragtay runtii aada u cajib gelisay, booskiisana ay qalbi ka degtay. nabiguna maaragtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu dejiyey gurigii xaarithata ibnu nucmaan al ansaari oo guryaha umahaadkeena ridwaanullah calayhim ajmaciin daris la ahaa. halkaasuu nabigu dejiyey calayhi salaatu wasalaam. halkaa markuu dejiyey waqti ayuu la qaadan jiray. maaragtay hooyo caaisha ka sheekeynaysa allaha ka raalli noqday, waxay tiri sidaan haweeneyda uga masayray waxaan uga masayray iyada sokadeeda malisaan uga masayray, laana haweeney waxay ahayd bay tiri hooyo caaisha qurux badan oo maaragtay midab qurux badan ilaahay siiya qurux badan ayay ahayd. rabbi subxaanahu watacaalana nabigiisa uu maaragtay uu qalbigiisa jacayl iyo khayr uu ka muuqdo inuu maaragtay rasuulku maaragtay cajab gelisay gabadhaas siduu uga helay. hooyo khadiija hooyo caaishana masayrkeeda hadda waa ogtiin, allah ka raalli noqdo. marka waxay tiri wuxuu dejiyey bay tiri gurigaasayto xaaritha ibnu nucmaan oo dariskeena ahaa.
waxay tiri habeenkii badankiisa iyo maalintii waqtigu la qaadan jiray agteedu ahaan jiray ilaa aan ka maseyrnay bay tiri annagii oo dhan haweenkii isu sheegnay wartani arbay naga qaada arbay nagala wareegtaa maxaa jira waa ka la isla dhexmaray ilaa Maariya ee arintii gaartay oo dareentay sida loo fiirinay sida loo ilaalinayo nabiga soo gelidiisa iyo ka bixidiisa iyo hawsha siday tahay ilaa xoogaa ay cabsi ku dhalatay argagaxday nabigu markaa wuu raray calayhi salaatu wasalaam markuu ka arkay cabsida iyo waxa uu raray meel Madiina xaafad sare oo caaliyadeeda xaafadaha sare beeraha iyo leh maadaama ay iyaduna ka tiri dhul Maariya ka timid dhul beera leh oo biyo leh wabiga Niil u maro halkaas nabigu u wareejiyay calayhi salaatu xaafad reer ansaariyiin oo reer bani Maazim xaafadii deganaayeen xaafadaha khasrajiinta ayuu dejiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam halka markuu degay bay tiri hooyo Aisha loo wareejiyay taasaaba nooga sii dartay bay tiri arintaasaaba nooga sii dartayo halkaas ugu tagi jiray oo waqti uu la qaadan jiray markii hore waaba arkaynay hadda waaba naga qarsoon yahay sooma taasna waa nooga sii dartay bay tiri waa nagu adkaatay ilaahayna waxay tiri wiil ilmo ayuu kaga irsaaqay iyadoo wiil buu ka siiyay annaguna waa nala ka xarimay inaan wax u dhalno nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam maartay ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala sanadkii 7 bay ahayd markaas ay bay'atu ridwaanki kadib sulhul hudaybiya kadib ayayd markii warqadaha soo diray sanadkii 7 rasuulka calayhi salaatu wasalaam sanad isla markiiba muddo yar magaaladii Madiina waxa isqaadatayba maartay farxad iyo bishaaro lagu bishaaraysanay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu maartay ilmo u soo socdo oo ilmo u sugayo uur ay u leedahay Maariyo arintii baa isqaadatay nabigeena aad buu ugu farxay isagoo 60 iyo wax jira maantay taqriiban 62 ku sii socda in maartay uur loo leeyahay sidii aabihii nabi Ibraahim oo kale calayhi salaam weynaan ku dhalayo asagoo maartay intaas oo haweena qabo qaarkood caruur lahaayeen aan wax u dhalin nabigeena xal calayhi salaatu xoogaa waxba galo taabtay maartay isagoo intaas oo haween oo qaarkood caruur dhaleen intaas oo sano qabay aan waxba u dhalin iyo qoftan hadda maartay ilaahay ba khayrkan si degdeg ah ilaahay bishaaradan iyo khayrkan u siiyay ilaa malak jibriil baa u yimid baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri yaa abu ibraahim buu ku yiri markaas nabigu aad qalbiga ugu degay yani qalbigaaga deji xasil waaye ibraahim adiga dhashay waa wiilkaagi marka alxamdulilaahi rabbil caalamiin taasuna waxay ahayd arin soo martay bay ahayd maartay nolosha Maariya sidoo kaleeto waxa dhacday yani farxadda qofku markuu qof jecel uu la joogo nolosha la wadaagay dad badan waxa jira yani laga yaabo inay war iyo dhibaatooyin iyo hawlo ku furan reerka iyo qoyska dhisan ilaahay meel kasta waa kastaan joognaba Allahina badbaadiyo ku umada ay ka nabad gashan Allahina ka dhigo inaguna umada ka nabad gala waxa dhacday Maariya wiil maartay nin in adeerkeeda ninka in adeerkeeda oo maartay ayaa u imaan jiray oo biyaha u soo dhaamin jiray maadaama maxaafad sare deganayd oo xaabada u soo guri jiray wax ku karsato markaas dadkii dariska ay waxay u dhawaaqeen waa maxay gabadhan inta ninkaas u sii galayo waqti uu meesha gurigeeda ku qaadanayo inta sii socdo biyaha iyo xaabada u sii wado u soo wado maxaa ka dhaxeeya maxaa jira kama aysan badbaadin xamla in lagu xadgudbo yani carabkii dadka kama aysan badbaadin runtii inay sida u galaan ilaahay rabbi subxaanahu wa ta'ala nabiga marka warkii wuu soo gaaray inta la wadwado magaalada maalintii dam Ali ibn Abi Talib rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yeeray calayhi wasaasa jirtay seeftaada qaado orod u soo tali ninka hadda meesha ku heshid Ali marka Allah ka raali noqdo wuxuu yiri yaa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qofku maqani waxa qofka markuu meesha tago waxa qofka maqani ogeyn ayuu arkayaa arinta ma hubsada oo ma fiiriya xaaladda meesha ka jidha oo ma xaqiijiya mise hada waa u taliya ninka ma yiraha waa sidaas sheegtay qofka maqani wuxuusan ogeyn baa qofka xaadirka u arkaya sidaas sameeyo arinta u kuurgal sidii bay sameeyay Ali radiyallahu ta'ala anhu warda guriga seeftiisa buu maaragtay garabka surtay meeshii buu aaday mise wuxuu ugu tagay ninkii jooga markuu u tagay wuxuu ku sameeyay markuu arkay Ali oo ku soo socda hadda wajigiisa iyo seefta isagoo wata waa gartay in isaga loo dan leeyahay waxa la dhahaa isagoo meel geed timir agtiisa meel beer jooga ayuu arkay korbuu geedkii kor u koray meel dhaha hadana uu iska soo tuuray dhulku maaragtay isku soo tuuray labadiisa lugood buu markaa kala furay maradii intuu iska qaaday marka Ali markaa wuu arkay markaa inuusan baninkani wixii maartay waxba uusan lahayn oo wixiiba laga jaray oo maartay waagi hore saasa lagu sameyn jiray ragga maartay si ay maartay sida awrta camal lagu sameeyo lagu xad gudbi jiray run ahaantii
marka sidaasaa loo galay wixii dhanba wax yar iyo wax weynba maba haystaba ninbaa hawshiisu maba ahaba bes kadibna wuu ka tegay isaguna hadda biyahaas iyo walaashiis gabadha ina adeertiisu dhaqaalayn jiray meesha kuwa heshin jiray nabigu usoo noqday cali radiallahu tacaala canhu warda arrintii buu uga waramay alxamdulilah wiyi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa mahad iska leh naga kaafiyey maaragtay dhibkiisa iyo dhiigiisa iyo hawshiisii anagana xumaanta naga fogeeyo na daahiray rijisiga iyo xumaanta naga fogeeyey danigaas iyo waxaasay dadku sheegayeen bismillah allahuma salli calaa maxamed marka waxaa dhacday markay waqtigeeda u dhamaaday uurkeedii u dhamaaday ilaahay u dhameeyey goor habeenay foosho markay qabatay dhalitaankeedii uu joogo waxaa ka umulisay umu raafic oo salma la dhihi jiray gabadha saxaabiyadda allah ka raali noqdo oo mawladii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ahayd iyadaa umulisa u ahayd iyadaa ka umulisay wiil bay umushay habeennimadii kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay usoo fartay fariin odageeda abu raafic bay ku tiri ka kac meesha rasuulkii u tag oo usoo bishaaray wuu u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasi ugu bishaareeyey in ibraahim wiil uu dhashay nabiga calayhi salaam aada buu ugu farxay wiil adoona nin adoona ayuu u hibeeyey abu raafic oo yiri qaado adoonkan adiga iska leh maaragtay hadiyadna uu siiyey marka aada buu nabiga ugu farxay subaxnimadii anas ibni maaliga ka sheekeyna allah ka raali noqdo wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam subaxnimadii wuxuu yiri xalay wiil baa ii dhashay aabahay baana ku sameeyey ibraahim nabi ibraahim baan ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam aabahay maalintii toddobaad markuu gaarayna timuhu nabigu ka xiira u qalalay timihiisina waa la miisaamay intaas miisaankooda uu noqday oo qalin ah ayaa laga bixiyo lacaga oo la sadaqeeyo qalin ah intaasoo garaamo qalin ah oo kadibna uu sadaqeeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam timihiisina wuxuu amray in la duugo nabigu waa ku farxay ibraahim wuu soo xambaari jiray wuu dhunkan jiray wuu carafsan jiray xataa guryaha umahaadka iyo masaajidka iyuu keeni jiray halkaasi ugu tegi jiray kasoo qaadan jiray xilligii ugu fiicnaa oo wiilkii uu 2 sano 1 sano iyo wax 16 bilood baldhaa taqriiban markuu soo gaaray asagoo maaragtay quruxda iyo maaragtay jiraa maaragtay xilliga caruurta ugu fiicnaayeen socodka iyo hadaaqa iyo xilliga ugu quruxda badan yihiin xilliga uu maraayo ayaa waxaa dhacday aabayaashii hooyadii iyo aabihiisba ku farxeen faadima binti rasuulillah sallallahu alayhi wasallam aada u jeclayd ku farxday walaalkeed maaragtay nabiga ayuu aada ugu ekaa baa layiri calayhi salaatu wasalaam ibraahim calayhi salaam nabiga ayuu aada ugu ekaa nabiga shabihiisuu lahaa maaragtay nabigu aada ugu faraxsan yahay farxad nabiga lagu wada farxay waxero sadaqa maalintuu dhashay xoolo qalay sadaqa bixiyey maaragtay dadkii ka farxiyey cunto quudiyey aada buu ugu farxay nabiga calayhi salaatu la-anna wax gabdhihiisii oo markaa 2 kamida ay dhinteen oo maaragtay ay u nool yihiin markaasito umu kalthum iyo qofta la yiraahdo faadimo ayuu dhashay runtii maaragtay xilli maaragtay gabdhihii rasuulka calayhi salaatu wasalaam labana ay tagtay dadkii uu jeclaa hooyo khadiija tagtay xaaskiisa kale kulli nabiga calayhi salaatu aada buu ugu farxay markii ibraahim ilaahay ayagana intii dhimantana ridwaanullahi calayhim ajmaciin allah u naxariisto nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday marka maalin maalmaha kamid gabadha xataa nuujinaysa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam gabar waxaa loo dhiibay markuu dhashayba ibraahim gabar waxaa naaska nuujin jirtay reer bani maasima oo ansaariyada oo umu sayf la dhihi jiray ayaa naaska u dhigtay 7 neef oo riyaa buu nabigu u geeyay calayhi salaatu wasalaam loo geeyay inay caanaha ka lisato looga liso ay cabto caanaha kadibna ay wiilka ibraahim nuujiso carabtana dhaqankaasi laa inay ilmahooda qof kale u dhiibaan oo u nuujiyo marka sidii nabigeena lagu sameeyay calayhi salaatu wasalaam markuu yaraa maariyo halkaasi iyaduna nabiga firaaqa u heshay waqtigeeda alxamdulilah cunikeeda laguna ilaa wiilkii soo barbaaray xilliga uu soo gaaray 16 bilood maalin maalmaha kamid ah nabigeena jooga masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii la fadhiya minbarka ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam khabaartii u timi inuu ibraahim sakaraad yahay naftina ay gurayso oo rabigii xaggiisa inuu u wareego waxba aysan maaragtay sakaraadkii saaran yahay nabigu markii arrintaa loo sheegay ilin ayaa kasoo daadatay waa kici kari waa isagii dhawaan dhaxay beerkii wadnihiisa marihiisii nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu cuskaday cabdiraxmaan ibn cawf oo agtiisa fadhiyay ayuu ku taagsaday garabkaa la qabtay waa la kaxeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigiibuu tegay maariyo wiilkii dhabta ku hayso ooyeysa walaasheedna ag fadhida dadkii la wada joogo waa ka qaaday dhabtuu saaray wiilkii sakaraada naftii qaadaysa ibraahim calayhi salaam nabiga haddana maariya ka qabatay haddana asaga nabiga calayhi waa ilmeeyey indhihiisi ilmaa kasoo daadatay ilmaha yar sakaraadka sida loogu hayo iyo sida inuu ka tegayo
aakhirana uga socdo ka wareegayo ilaa saxaabadii ay dhaheen yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam adiga sidaan u ooyay u ilmeynaya nabigu wuxuu yiri waa naxariis waxaan aad arkaysaan ilmadu waa naxariis weeye wuxuuna hadalkiisii ajaa'ibta la ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yiri tusaalaha inoo ahaa uu yiri ibraahimow indhuhuna way ilmeynayaan qalbiguna waa murgaya mana dhahayna ilaa wuxuu ilaahay raalli ka yahay mooyaane markaas sidaas wiilkii nafti kaga baxday uu ku dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku mayray lagu kafnay qabuu ku tukaday salaatu janaasa nabigeena calayhi salaatu wasalaam kadibna qabuuraha baqiic ayaa lagu ku duugaya calayhi salaam ibraahim sidoo intaasna maartay naxdintii iyo way naxeen labadiisi waalid rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo maariyaba laakiin ilaahay bay u sabreen ridwaanullahi calayhim ajmaciin rabbi bay u sabirtay sidii bayna maaragtay nolosheeda ku qaadatay waxyaalaha soo maray maariya runtii oo xisada mudan waxaa kamid ah intay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wada joogeen rasuulku wali dhiman calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamid ah maaragtay in hooyadeena xafsa allah ka raali noqdee iyadoo maaragtay xaafadeeda uu nabigu ku qoraa calayhi salaatu wasalaam maalinteeda ahayd kadibna nabigu markuu u yimi tiri idan isii guriga hooyaday aabahay baan aadaya uu u fasaxay kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maariya u cidirsado maariya ee u timi waqti halkaa kula qaatay hooye saxafsana isla markiiba ay soo gadoontay ee ugu timi guriga iyagoo wada jooga hadhowna ay banaanka ku sugtay maariya kasoo baxday aad bay gabadha adoonta ah oo gurigeedii iyo gogasheedii nabiga waqti la qaadatay aad bay uga xumaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam bay markaa ku tiri maxaa sida haweenka kaleba saas kuma aad samayseen aniga maxaa sida la iigu sameeyey nabiga isagoo raalli garaynaya ayuu yiri maariya maanta kadib ma xaaraan bay iga tahay inaan waxba ku darsanaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa iyadii suuratu taxriim sabatii kusoo degtay waayaa la dhahaa malabkana waa la sheegaa laakiin arrintaasa xoog badan maariya arrinteeda ah allah ka raalli noqdee ilaahayna uu yiri nabigeero maxaad iskaga xarimaysaa wixii ilaahay kuu xalaaleeyay adigoo dalbaaya xaasaskaaga raalli garayntooda in maaragtay loo baneeyay in laga kafaaro guto dhaarti in sidoo kaleeta nabiga calayhi salaatu wasalaam loo waramay oo ilaahay uu ka sheekeeyay rabbi subxaanahu watacaala siduu nabigu ugu siraystay xaasaskiisa qaar kamida laakiin warkii ay sheegtay ilaahayna uu muujiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar kamida qaarna dee uu nabigu gabadhii u sheegay qaarna in sidaasito uu nabigu ka waramin calayhi salaatu wasalaam markuu arrintii u sheegayna ay tiri maaragtay yaa kuu sheegay warkan jaaba hooyo xafsana maxay samaysay markuu nabigu sidaa ku yiri qof ha u sheegin laakiin maariya maanta kadib xaaraan bay iga tahay waa iyada qal ku raali garinayay hooyo Caisha daris laayday saaxiibana ahaayeen walaalana ahayn isku dhaganaayeen bay isla markiiba u sheegtay gabadha carabta markaa joogtana oo xorta oo ninku qabana waxa dhib ku ayd gabar adoona inuu ninkeedu leeyahay milki yamiinta inuu leeyahay gacantiisa hanatay gabadhana gabar la jecel yahay bay ahayd in nabiga rabooska degan qalbigiisa calayhi salaatu wasalaam soo in loo dhameeyo waaba la doonayaba arrintii laakiin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u waramay nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaas ay isu kaalmaysteen hooyo xafsa iyo hooyo Caisho allah ka raali noqda iyagana waa lagu canaantay inay maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala qalbigooda inuu sheedaysan rabbi subxaanahu watacaala arrintaa aysan uga soo noqon oo uga toobad keenin kaalmaysiga ay isu kaalmaysteen nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaas ka wada hadleen arrintaas ku farxeenna in ilaahay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam maamulihiisa yahay garabkiisa yahay in malaki jibriil uu garabkiisa yahay in sidaas oo kaleeto saalixiinta mu'miniinta ay yihiin aabayaashooda Abubakar iyo Umar ay kamid yihiin ridwaanullahi calayhim ajmaciin in malaa'igtu sidaas oo kale iyaguna ay nabiga garab siinayaan u gargaarayaan arrintii hooyo Caisha iyo hooyo Xafsan allah ka raali noqdo waa ka soo noqdeen ilaahay bay uga toobad keeneen nabiguna waa iska cafiyay ilaahay rabbi subxaanahu watacaala hooyo Maariyana sidiba iyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay ilaahay maaragtay ugu soo celiyay inay noloshoodii wada qaataan ilaahay raalliha ka noqdo rabbi subxaanahu watacaala laakiin arrin soo martay ahayd ilaahayna uu u gargaaray rabbi subxaanahu watacaala jalla fi cula jalla jalaaluhu wiilkaasna ilaahay uu siiyey ibraahim nabiga oo ummu ibraahim bay noqoto iyo ilaahay khayraad badan oo ku irsaaqay rabbi subxaanahu watacaala jalla fi cula nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ibn Cabbaas warinay nabigeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam markay ibraahim dhashay wiilkeeda ayaa xoreeyay xor weeye uu yiri laana gabadha adoonta haday sayidkeeda wiil ilmo u dhasho ilmahaas maartay way xoroobaysaa hadii isagu uu xoreyn xataa markuu dhinto xor ayay noqonaysaa Allahu akbar ilaahay rabbi subxaanahu watacaala marka khayrkaas oo dhan buu siiyay Maariya maartay nabiga calayhi salaatu wasalaamna agtiisa aad buu u dhaqaaleyn jiray uga taxadari jiray
wadanteeda iyo xaajadeeda uu fulin jiray maaragtay meesha sharafta leh oo wanaagsanna xaafada maaragtay biyaha iyo beeraha leh ayay deganeyd. halkaasuu nabigu ugu tegi jiray calayhi salaatu wasalaam. farxad iyo khayr iyo barwaaqay ku jireen ilaa ilaahay uu qadaray rabbi subxaana watacaala nabigu inuu ilaahay xaggiisa u wareego rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. markaasna abubakar ayaa maaragtay mas-uuliyadeedii la wareegay, halkaa ku biili jiro, ku dhaqaalin jiro, kaga warhayn jiray khaliifata rasuulillahi sala allahu alay wasalam. khaliifata rasuulillahi sala allahu alay wasalam markuu dhintayna amiirulmu'miniin cumar uu qabtay radiallahu tacaala canhu ardaa. sidii ayuu u dhaqaaleynaya, uga warhayay masaariifteeda iyo danaheeda iyo xaajooyinkeeda iyo dantay leedahay, ilaa markii sanadkii la marayay 16 ee hijriga meelna ma aysan aadin jirin baa layiri gurigeeda iyo inay maaragtay qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka nabiga kusoo tukanayso, kadibna nabiga soo salaamaysa calayhi salaatu wasalaam qabrigiisa, kadibna ay qabriga qubuuraha biqaciyo wiilkeeda meeshuu ku dugnaa ay tegi jirtay, usoo duceyn jirtay, kadibna ay maaragtay gurigeeda ku noqon jirtay. intaasay ahayd qur-aankeeda, dikrigeeda, khayrkeeda, cibaadadeeda ayay ku jira qof afgaaban, degan, xasiloon, edab leh, aada iyo aada u akhlaaq badan bay ahayd. ilaahayna u nimceeyey, ilaahayna nabigiisa uu jeclaa, ilaahayna uu jeclaa, nabigiisuna uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam. sharaftaas iyo karaamadaasna ilaahay uu siiyey inay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwii uu jeclaa oo maaragtay waqtiga la qaatay oo maaragtay ilaahay uu ku irsaaqay inay noqoto. bismillah allahumma salli calaa maxamed. sanadkii 16 ee hijriga ayay dhimatay. cumar ibn khadaab radiallahu tacaala canhu ardaa amiirulmu'miniin uu yahay. sidii baana maaragtay ilaahay rabbi wiilkeedu goormuu dhintay? sanadkii maaragtay 10aad buu dhintay, bishii rabiicul awal. sanadkii 10aad bishii rabiicul awal ayuu wiilkeedu dhintay. ayaduna waxay dhimatay sanadkii 16aad bay dhimatay, ayaduna bishii muxaram bay dhimatay. bal fiiri, ayada wiilkeeduna rabiicul awal buu dhintay sanadkii 10aad, ayaduna waxay dhimatay oo hijriga ah, ayaduna sanadkii 16aad bishii muxaram ayay dhimatay, ayaduna ilaahay la kulantay. cumar ayaa maaragtay duugay oo diyaariyay janaasadeedii iyo ambaabaxeedii iyo hawsheedii. muslimiintii ku tukadeen qabuuraha baqiic ayaana lagu duugay, meesha wiilkeedu ku duugan yahay iyadana lagu duugay, iyo umahaadkii kale ay ku duugan yihiin radiallahu tacaala canha waardaa. ilaahayna raalliha ka noqdo, ilaahayna macooda hayna ka dhigo, jacaylka aynu jecelnahayna allah inoo ku naxariisto, allah inoo ku dambi dhaafo. gabadhaas waxay ahayd milka yamiintii nabigeena calayhi salaatu wasalaam, sariyadiisii ayay ahayd. ilaahay maaragtay boqorkaasuna usoo hadiyeeyey, uuna maaragtay ilaahay wiilka ibraahina kaga irsaaqay. iyada iyo hooyo khadiijo keliya ayaana rasuulka caruur u dhalay. hooyo khadiijo 4 gabdhood iyo 2 wiil u dhashay, allah ka raali noqday dhammaantood. iyo hooyo maariya iyaduna wiilka u dhashay ridwaanul calimi ibraahina umma ibraahin ahayd. ilaahay rabbi subxaana watacaala dhammaantood raalliha ka noqdo, kuwa maaragtay koolkooliya oo barta oo maaragtay jannatul firdaws laclaana allah ina kula kulmiyo. ilaahay rabbi subxaana watacaala raalli dhammaantood ha ka noqdo. ilaahayna nafteedii tiina nacabsida ilaahan u dardaarmaya. adduunya qaymo male, kuwa ilaahay kitaabkiisa ku dhega oo gacanta midig ku qabsada oo ku noolaada marti ku noqon allah ina ka dhigo. maray macnihiisa dhagaysanayaan, maray qiraa'adiisa dhagaysanayaan, maray asagii baranayaan, maray tafsiirkiisii akhrisanayaan. ilaahayna ku nooleeyo dikriga ilaahayna afka kuwa ku haya. axaba kalaami ila allah, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar, allah ina ka dhigo. waxa cimri qofka siduu rasuulka sheegay calayhi salaatu wasalaam, qof mu'min oo ilaahay cimri siiyey wax ka fadli badan ilaahay agtiisa ma leh, oo noloshiisa ku camiray intuu dunidan joogay cimrigiisa. subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar, qofkaasa ugu fadli badan alla agtiisa. allah kuwa ina ku daro, kuwa ku noolaadana allah ina ka dhigo. nabigeenuna 4 kelmadood buu ka doortay adduunka waxa saaran oo qoraxda usoo baxday inuu dhaho subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar. allah inoo ku naxariista, allah inoo ku dambi dhaafo, allahna ina ku nooleeyo shari shaydaana. allah ina ka xijaabo waalidkeena iyo culimadeena iyo muslimiinta iyo mu'miniinta intiina ka hormartayba. allah u naxariista intii noolna, allah inoo barakeeyo. adduunyo kuwa isku ilaawana ilaahay ina kama dhiga walaalayaal. adduunyadan guriga aakhiro ina ku qurxino, waxayna haysanaa aakhiro ina ku gaarno. haweenow yayna adduunyo ku mashquulin, kitaabkeena iyo tusbixeena iyo dikrigeena sadaqadeena inaynu wax la baxno. waxayna haysanaa guriga aakhiro ku qurxino. adduunyadana waynu ka tegaynaa inu ogaano harka labadiisa gelin waaye. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri laan janno ama geed janno ama beer janno intaba waa la dhahaa rawda, yacni duuba yacni duuba buu yiri. waxay u sugnaatay qofkii gurigiisa waasac noqdo, gurigiisa ku nagaado, fidnadan adduunka dhacaysa ka gala,
oo gurigiisa halkaa dikriga ilaahay ku qabsado ku xasila fidnada kaga carara qofkii carabkiisa dadka ka celiya oo ka celiya sharkiisa dadka ka ceshto carabkiisa ka ceshta qofka dembigiisa waxa cimrigiisa uu dembi soo galay la ooya oo dembi dhaaf ilaahay weydiista oo dembigiisa la ooya qofkaasito ayaa iska leh geedihii jannada iyo beerihii jannada marka ilaahay ku ahayna ku daro kuwatooda ku mashquulatii bini aadanka ka mashquula adduunyadana ka mashquula aakhiri adduunyana waxa qaymaba adduunyo ilaahay kama uusan dhex muuqan qaymana male adduunyo garabkana la agtiisa kama dhama saas darteed ilaahay uga dhex muuqan waayay markuu nabi Muuse calayhi salaam uu yiri ilaah waan ku arko laakiin ilaahay aakhira waa la arkayaa sidoo nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kuwa ilaahay wajigiisa ku ilqaboosada oo ku indha nuursada allahina ka dhigo ilaahay la kulma ilaahayna ku raali ka noqdo allahina ku daro ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala aakhirana saas qaymo ku yeelata nabigeena wuxuu dhigi jiray calayhi salaatu wasalaam allahumma la aisha illa aisha al-aakhirah اللهم لا خير إلا خير الآخرة وسيدة حقيقة خير بمجرو إلا خير كآخرة موياني نولنا مجدو إلا نولش آخرة موياني الحمد لله رب العالمين مرككوا آخرة صد ياري الدنيا قيمة ملي الدنيا كجارة وحي هيستان آخرة الله نكدقو إلهي دقرقي سكود كمشغولة آخرنا كمشغولة يوحي نعفعايا ورسن إيوح خيري وربركان اسكم أغلينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي خيرا كوالف من الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين وحي أنقفنا نفتي دي الشيطان اللي رسول بريبكيهن إلهي وانا دم داف ويدي سنة لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته